cilmi baadhista faraqa u dhexeeya dhaqanka hidaha iyo hibada. Muddo haatan laga joogo 9 sannadood ayay ahayd markii aan buug suugaaneedka hal qabsi ku soo bandhigay faraqa u dhexeeya hal kudhiga iyo mahmaahda, hal kula baxa iyo mahmaahda, hal haysta iyo mahmaahda, hal murtiyeedka iyo mahmaahda, hal qabsiga iyo mahmaahda. Dhigaalka iyo qoraalkaas aan ku soo daabacay buuggaas 2006 ayaa oo faa'iido iyo iftiimin ballaadhan u noqotay af Soomaaliga iyo bulshadeenna, sidoo kale daboolay baahidii loo qabay in arrimahan qoraal aan duugoobin laga sameeyo maadaama aanu jirin buug hore oo arrimahan wax ka qoray. Waxaa Ilaahay mahadii ah mar labaad dadaal badan, hawl adag iyo waqti dheer oo galay kadib in aan 9 sannadood kadib bishan bisheedii maxadka af Soomaaliga iyo dhaqanka ee jaamacadda Golis ku soo bandhigo cilmi baadhistaydii labaad oo ku saabsan faraqa u dhexeeya dhaqanka hidaha iyo hibada. Si aan u lafaguro oo qeexitaan ballaadhan ugu sameeyo faraqa u dhexeeya dhaqanka hidaha iyo hibada, waxa aan muddo 5 sannadood ah baadhitaan iyo daraasad la daba taagnaa in aan cilmi baadhistaan iyad oo hufan oo la wada fahmi karo soo bandhigno. Waxa aan shiishka saaray faraqa u dhexeeya xidhiidhka ka dhexeeya iyo arrimaha ay ka siman yihiin. Muddo aad u dheer kadib waxa aanu ogaanay in dhaqanka hidaha iyo hibadu ay kala duwan yihiin oo mid waliba tiir gaarkiisa u taagan yahay. Dhaqanka abuurta rabbaaniga ah ee qofka ma aha. Bulsho ayaa bulsho ka dhaxasha. Wax baa laga bedeli karaa, wax baa lagu kordhin karaa, wuu dabargol karaa. Hidde abuurta rabbaaniga ah la socda. Qof baa eheladii ka dhaxla. Isir wuu ku yimaadaa. Ma dabarci karo. Go waxba lagama bedeli karo, waxba laguma kordhin karo. Hibo waa deeq rabbaani ah ama qof dheeraad u siiyo. Ehel ama isir waa lagu dhaxli karaa. Masal guurto mana dabargodo. Waxba lagama bedeli karo, waxba laguma kordhin karo. Inta badan ma aha wax la taaban karo. Dhaqanka haddaba si aynu u fahanno faraqa u dhexeeya dhaqanka hidaha iyo hibada, aynu sharaxaad ka bixinno waa maxay dhaqan. Haddii aynu su'aashan jawaabteeda isku dayno, dhaqan waxaa loo yaqaanaa arrin ama shay xilli bilaabmay balse baahay ama raagay oo la caadaystay muddo kadibna noqday dhaqan. Dhaqanka marka muddo la joogoba wax baa ku soo kordha, wax baa ka dhaca. Asalkiisa dhaqanku waxa uu ka soo jeedaa arrin ama shay xilli lagu taliyey in la sameeyo, la sii xiiseeyo, la caadaysto ayaa muddo kadib isu roga dhaqan. Tusaale, waxa ay ka helaan cadaalad darrada. Waxa ay caadaysteen cadaalad darro. Waxa ay ku dhaqmaan cadaalad darro. Waxay ka helaan wuxuu ka helaa farda fuulista. Waxay caadaysteen wuxuu caadaystay farda fuulista. Waa dhaqankooda, waa dhaqankiisa farda fuulistu. Dhaqanka 20kii guba badbaa luma badna way soo kordhaan. Tusaalaha ugu quman ee inoo tilmaami kara meesha uu ka soo jeedo waxaa lagu sheegi karaa dhaqanku waa qaab nololeedka bulsho, waa sida loo nool yahay. Kolkaas waa dhaxal bulsho uga tagto jiilashii ka dambeeyey, balse jiilkaa dambe wax buu ka bedeli karaa, waxna wuu ku dari karaa. Tusaale, 70 gu ka hor hooyada Soomaaliyeed haddii ay umusho waxa ay dhagaha ku xidhan jirtay toon. Waxay qaadan jirtay qori la qoray oo la yidhaahdo wegar. Ilmaheeda waxa ay qoorta ugu xidhi jirtay xulbad iyo xildiid. Gacanta waxa ay ugu xidhi jirtay baraarug inta aanu fadhi baranin. Haddii uu qoslo, hooyadu inta ay madaxa ka afuufto ayay odhan jirtay malaa'ig baa salaantay. Haddii uu ooyana shaydaanka ayay ka naari jirtay. Dageerta iyo salaada, qofku marka uu weynaado uun baynu aaminsanayn inuu tukado. Islaan odaygeedii dhintay baa lagu yidhi marxuumku ma tukan jiray. Islaantii waxa ay tidhi markii horena Ilaahayba kuma qabanin oo xooluu lahaa, markii dambena laguma simin. Nin maalin eedaamaya oo geel badan lahaa ayaa dadkii yaqaanay isweydiiyeen, war hebel waad ka eedaamaya miyuu caydhoobay? Wiil arday ah oo kitaab soo qaatay ayaa hooyadii ku tidhi, hooyo, qur-aanku yaanu ku jeexine, kutubta aanad gaadhin ha akhrisanin. Dhaqanka waxaa ka mid ah martisoorka, magan bixinta, garnaqsiga, xeerarka, xaalka, gabaatiga, yaradka, ciyaarta, fijaanka ama xeedhada, xoolo dhaqashada. Sidaas daraadeed waa tiir gaarkiisa u taagan. Haddii aynu afafka kale ku miisaano afkeenna, waxa aad ogaanaysaa sida aanay isugu qaldami karin dhaqan, hidde iyo hibo. Hidde waa arrin la xidhiidha abuurta rabbaaniga ah oo dadka iyo xooluhuba ka siman yihiin. Hidduhu waa isir raac dhaxaltooyo ah sida 1 faruurnaanta, 2 burada, 3 hagahagada, 4 farabadnaanta, 5 ilko badnaanta, 6 cirada, 7 gaabnaanta, 8 dheeraanta,
9 madowga 10 casaanta 11 timo jileeca 12 timo adkaanta 13 dalabta 14 qalaafaha 15 suugaanta 16 bidaarta yowm tusaale hidaha waxaa wadaagi kara dadka iyo xoolaha oo waxaa la odhan karaa ama la arkaa iyada oo aad leedahay hashani waa gabno oo hooyadeedba waxa ay ahayd mid gabno ah hashani waa madi caana badan oo waxa ay hidda raacaysaa hooyadeed hidaha waxba lagama bedeli karo waxna laguma kordhin karo muddo kasta oo ay gaadho waa astaamo muuqda oo la taaban karo ama aan la taaban karin oo rabaani ah hiduhu waxa uu ka iman karaa ayeeyo iyo awoowo dhinaca hooyada ama dhinaca aabbaha isir dhaxaltooyo ku ah hibadu way ka duwan tahay hidaha iyo dhaqanka labadaba hibadu waa farac ku abtirsada hidaha tusaale ahaan hibada waxaa ka mid ah 1 aftahanimada 2 garyaqaannimada 3 codbaxsanaanta 4 masrixiyadda 5 indheergaradnimada 6 libaysiga 7 hal curinta hibadu waa hanuun gaar ah oo ilaahay addoomihiisa qaar ka mid ah siiyo hibadu waxa ay u gooni tahay aadamaha oo lama wadaagi karaan mayeedhaanku hibadu tilmaan ahaan waxa ay u dhowdahay baadi sooc gaarkeeda u suntan waa qof fure hoodaale ah iyo haldheeri rabaani ah sita oo arrinka uu isku dayoba guul iyo libin ka soo hooya furahaas oo u saamaxa in uu dhowr arrimood isku darsan karo howlgallada luuqda heesaha ku caanbaxay waxaa hibo gaar ah oo dheeri wadata lahaa maxamed mooge cumar dhuule cali iyo cabdi qays 3 nin waxa ay hibo u lahaayeen oo isku darsadeen dhowr arrimood oo kala ah 1 hal abuurnimo 2 laxamiiste 3 ku luuqayn 4 garaacidda muusiga 5 masrixiyad iyada oo ay abwaaniintu wada gabaydo ayaa haddana qaar ka mid ahi lahaayeen hibo dheeri ah tusaale ahaan abwaaniin fara badan ayaa soomaalida gabi jirtay haddana qaar ka mid ah ayaynu odhan karaa waxa ay lahaayeen ama leeyihiin hibo dheeri ah waa arrin ay ku kala mudan yihiin oo noqon karta hidde mararka qaarkoodna madax bannaan oo aan ku xidhnayn hiddaha waxa aynu tusaale u soo qaadan karnaa dhowr abwaan oo geeyiga soomaalidu degto caanka ah sida cabdilaahi suldaan timacadde waxa uu lahaa hibada cod la yaab leh oo mucjiso ku ladhan tahay iyo god maansood iba furkiisa aanay cid ugu horraynin oo egin ah cid ka dambaysayna aanay oomamaynin cabdilaahi macalin dhowdaan waxa uu lahaa hibo u gaar ah gabay luxdan jacbur noociisu yahay mid farshaxannimo ku dheehan tahay iyo cod dhumuc iyo dhadhan isku darsaday oo aan laga xiise goynayn axmed ismaaciil deeriye qaasim waxa uu lahaa hibo gooniya oo ay suugaantiisu wadatay waxa uu lahaa god maansood aan lagaga dayan karin oo suugaanta soomaalida raad weyn ku reebtay sidaas daraaddeed waxaa la odhan karaa hibadu tiir gaarkiisa u taagan oo aan ku qaldami karin dhaqan iyo hidda midna dhaqanka abuurta rabaaniga ah ee qofka ma aha bulsho ka dhaxasha waxbaa laga beddeli karaa waxbaa lagu kordhin karaa wuu dabargol karaa hidde abuurta rabaaniga ah la socda qof baa eheladii ka dhaxla isir wuu ku yimaadaa ma dabargoy karo waxba lagama beddeli karo waxba laguma kordhin karo hibo deeq rabaani ah alla qof dheeraad u siiyo masal guurto mana dabargodo waxba lagama beddeli karo ehel ama isir waa lagu dhaxli karaa waxba laguma kordhin karo inta badan ma aha wax la taaban karo